dhammaantiin saaxiib aad baa idin salaamay maanta waxaan ku hayaa fursad shaqo mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan oo la barto sanadkan 2024 waxa weeye video editing shirkadda Geeli Bashir labana dhalinyarada ila shaqeyso midna gaalka ayuu joogaa midna wuxuu joogaa Muqdisho bishii ninka waxa ay qaataa lacag $200 ilaa $300 baa guriga soo joogo subax jaamacadiisa ama shaqadiisa aado buu bil kasta aniga iga qaataa oo igu soo fariista anigana muuqaalada aad daawanaysaan YouTube-kayga iyo Facebook-ga muuqaalada qurux badan aad soo gasho nimanka dhalinyarada oo freelancerada baan u diraa way isu edit garayaan way isu diraan sidoo kale saaxiibayaal muuqaalada aan soo galiyo TikTok-ga Instagram-ka Twitter-ka iyo LinkedIn-kayga muuqaalada shorts-ka aan soo galiyo nimanka dhalinyarada baa isu sameeya muuqaalkan aan saaxiibayaal hadda u sidaan waxa daawaday 1 milyan iyo bar qof almost 2 milyan oo qof buu ku dhow yahay muuqaalkan marka qof kamid ah waxa way dhalinta ila shaqeyso shirkadeeda baa soo edit gareeyay marka waxa akhriyay comments-ka muuqaalka dhalinyarada markay soo xiliyeen muuqaalka editing-kiisa ciyaar maahan editing-kiisa waa mataqaana perfect way marka maxaa ka wada maanta waxa la isticmaalaa waxa loo attention economy maanta business-yadii hadii muuqaalo qurux badan sameeynin hadii mataqaana iska hagaajin content creation business-ka ma shaqeynay shirkadaha adduunka weyn xitaa dad baa u qaabilsan video editing marka saaxiibayaal adiga ay daawanaya oo maanta shaqo la'aanta haysto laga yaabo inaad jacad ka soo baxday waxa maanta rabaa inaad kula shaqeyso sida oo noqon lahayd full time video editor bishiina ku xisaabtamo 300 ilaa waxa way 600 waliba ogow aniga waxa laga yaabaa dhalinyarada shaqeeyo qofkii inuu qaatay bishii 200 ilaa 300 haduu laba qof oo kale la sii shaqeeyo oo muuqaaladan u soo edit gareeyo bishii waxa laga yaabaa qofka inuu ku xisaabtamo 600 ilaa 700 inuu ku xisaabtamo baa laga yaabaa haduu la yimaado mataqaana inuu dhex galo dadkaas oo waxa way fursadaha ka faa'iisto muuqaalka marka maanta waxaan kula shaqeynaya sidee ku noqonaysaa full time video editor shuruudihii baan ku soo diyaariyay experience badan baan u leeyahay teamka hadda ila shaqeeyana waxa way qaabka aan ku shaqaaleysiiyay nidaamka ii soo mareen baara muuqaalka inaan kula shaqeeyo video marka dhameysatid waxaan rabaa inaan mataqaana roadmap-kan aan kula wadaagayo aad ku dhaqaaqay maanta saaxiibayaal content creation waa one of the mataqaana more valuable skill set weeye qofkii barta dhulka ma dhacayo waayo dhalinyaro badan baa markii la soo hadasho dhalinyaro qurbaha joogta baa ila socdaniyo YouTube waxa u baahanahay editing baa mataqaana naga xumaaday marka waxa u baahan dhalinyaro waqti hayso wadka joogto freelancer ani marka laba faa'iido ma ku qaba dhalinyaradaas number 2 aniga macallin baan ahay koorsooyin baa duubay habeenkii Zoom baa galaa hadda waxaan duubayaa koorso leeyahay cryptocurrency oo bisha lixaad insha Allah aan soo saari doono habeenkii dhan marka 10 soo duubta aniga markii edit galaysa 10 maadaama koors tahay waan garanay cilmiga meeshii aan rabo inaan ka saaro editing iyo meesha aan rabo iyo waxa u baahan soo galiyo marka busy baan aniga ahay marka YouTube-kayga iyo Facebook-kayga muuqaalada ma edit gareyn karo waqti uma hayo marka ayagaan u diraa ayagana mataqaana win-win situation weeye anigana hawsha waa laga qabtay ayagana mataqaana way ka shaqeystaan oo way ka macaashaan marka faa'iido labaad aan ku qabana waxa weeye YouTube-kayga bishii saddexaad 15keedii baa waxaan u dabaaldegnay 200 kun subscribe baa u dabaaldegnay haddana waxaan marnaa bishii shanaad maanta aan duubayo waa bishii shanaad waa 12 May 12 baa hadda duubaya wuxuu marayaa YouTube-kayga 220 kun baa waxa ku soo biiray 2 bilood gudaheeda marka maxaa ka dambeeyay dabcan waa editing-ka aan qarash galiyay dhalinyarada mataqaana very talented weeye skill set fiican bay leeyihiin editing-ka qaabka aniga aan ka fiican bay u dhigtaan aniga ganacsadahay somehow busy baan hawlo kala ku mashquulsanahay awal marka edit gelisan jiray muuqaalka waxa weeye waa dareemi kartaa in hawlo badan u yeelan shirkad website aniga leeyahay waxa la mataqaana career plan baa leeyahay mataqaana cryptocurrency hadda wadna business hadda aan bilowna wadna marka hawlaha busy ah muuqaalka waxa la inaan 1 hour ama 30 daqiiqo ku edit gareeyo muuqaalka boosiis aan idin soo dhigi jiray laakiin hadda waxa isticmaalaya barnaamijkan sanad iyo bar baan isticmaalaya oo dhalinyarada muuqaalka edit gareynay YouTube-kii wax badan buu ka bedelay oo mataqaana marka noqoto views-ka hadda bishan aad jeedaan waa tan lacag mataqaana 700 ku dhow buu YouTube-kayga sameeyay marka waxa laga yaabaa in bishii mataqaana almost faa'iidana ani iga soo harto dhalintaasna waxood aan siiyay waa hagaag saaxiib balqeynta marka waxaan kugu shaqaynaa shuruudaha laga rabo marka aad noqotid full time video number 2 horta waxa laga rabaa computer baa laga rabaa dabcan kan oo kale muhiim ah computer qaali inaad gatid Apple ah MacBook Pro iyo waxaas muhiim ah computer $200 ilaa mataqaana $250 ilaa $300 adiga computer alis hadii ay gadan karto $150 iibso waayo editing waxa lagu sameeyaa mostly waa computer way marka waa inaad maal gashtaa cilmigan hadii aad jaamacad aad jirto lacag ku bixin jirto waxa laga rabaa xirfad inaad maal gashtaa xirfadaha marka waa la maal gashtaa kadib it will pay you back it will pay the price gadaal bay mataqaana saaxiib lacag badan aad ka heli doontaa laakiin marka hore maal gasho marka hore shuruudan waxa weeye in aad computer aad marka hore soo raasatid shuruudda labaad saaxiib waxa weeye in xirfadan baratid 3 ilaa 4 bilood waxa ka baranaysaa maanta saaxiib YouTube-ka waa jaamacad YouTube-ka gal ku qor video editing software badan baa jiro kii aniga si gaar ah aan kula shaqeynay oo ku soo wada YouTube editing YouTube-ka baad ka baran kartaa runta aniga mesela mataqaana hadda edit karayo kala YouTube-ka bay ka soo barteen oo mataqaana tutorial waxa jira 1 hour 2 hours oo waxa weeye ku cabsiinayo oo ka saarayo professional muddo bil ay 2 bilood gudaheeda macallin kaga dhigay arrinkan baa jiro marka soo bar xirfad is hubee waqti badan gali maalinkii 30 daqiiqo ilaa saacad gali
haddii xataa aad caajislow tahay 15 daqiiqo maalinka geli oo hal video daawo oo markasta qayb ka mid ah daawo si mataqaana hore ugu socoto shuruudda saddexaad laga rabo waxa weeye in aad dooratid software-da video editing saxda way tira badan marka hal mid baa in adiga professional macallin aad ku noqotid Premiere Pro baa jiro sidoo kale waxa loo yaqaan saaxiib CapCut aniga hadda talahaan waxa ku siin lahaa maadaama dunidii casri ay iska noqotay inaad CapCut aad baratid CapCut wuxuu ku fiican yahay CapCut wuxuu ku fiican yahay editing-ka marka hore mataqaana Premiere Pro waxa laga inaad waxyaalo badan marka soo baahat inaad soo diyaarsid laakiin CapCut maalinka u horeeya waxa samaysanaysaa setkaaga iyo qaabka adiga jecesha inaad wax u edit gareystid hal meel baa ku loo galaysanaysaa videoga laad qofka aad u edit gareysay waqti badan kaama gali wax kasta uu ku diyaarsan yahay xagga fahamka iyo fudeedkana CapCut baa ku fududeeya marka CapCut waa soo degsan kartaa computerka ku soo degso halkaas waxa ku baro YouTube ku gal sidee loo bartaa CapCut tutorial badan ajaanibi Soomaali wax ka daawan kartaa ka daawo soo cab inta kadib waxa samaysaa inaad practical principle laga raba muuqaalada YouTube ku jira aad la soo deg muuqaal aan edit galaysan oo kale la soo hadda anoo kale waxa sameeyay muuqaalada intii mataqaana googostaan oo kale shorts ka soo samaystaan TikTok bay soo gashtaan oo kale marka editing kale si saara inkastoo ku yaani almost editing iska yihiin marka soo la soo edit galayay haddana muuqaaladeeda hore ama dad kale muuqaaladooda kale bay sameeyaan marka qayb aan igu soo taageeray waan arkaa mataqaan editing ay sameeyaan in ku barbartaan marka habaqan YouTube gal dadka asleeda mataqaan ku fiicata muuqaalada la soo deg muuqaal aan editing fiican la soo deg si quality mataqaan la soo deg editing badan ku samee ku barbaro tutorial waxa soo gelisa marka TikTok ga soo gali dadka tus halka waxa soo gelisa azoo row ah oo aan edit garan halkaana marka dadka isku fiirinayaan marka waxa way difference badan ka dhaxay qaabkaas la sameeyaa midda afraad ayadana saaxiibeel waa muhiim waa inaad iska dirtay waxa loo yaqaan basic business skills waa inaad iska dirtay maxaa kamid how to find clients sidee loo helaa customers wixii waa barta mugta computer waa galatay skillka waa software waa bartay xilliga shaqadaasina baad la soo gaaray clients sidee loo helaa inaad bartay business skills basic ka baro saaxiibeel si baa insinya youtuber isleedahay youtuber ka wali dadka qurbaha xog la sar qof wadada jooga dii mataqaana ma awoodo inuu lacag tasbiix asaba laga yaabo inuu baarka ay irsaaqad u tahay laakiin dad asleedahay dadka mashquul weeye waa ganacsato sidoo kale oo ku mashquulsan YouTube kaliya dhaqaalaha ka soo isku tiirsaneen raaso muuqaalka la soo deg adoona la hadlin soo edit garee talentkaaga geli waxyaalaha uu ka qaldan yahay u soo sheeg wuxuu ka qaldan yahay 1 2 3 4 5 qoro muuqaalka soo edit garee qofkii u soo dir emailka soo raacay waxa ka bedeshay skillkaaga talentkaaga waxa aad macdo tahay qofka markuu muuqaalka daawado 100% uu dareemayaa YouTube-kiisa inuu ka dhiman yahay video editor waana u sheegaysaa muhiimadda uu leeyahay editor inaan talent leedahay in YouTube-ka iyo Facebook-ka aad kor u qaadaysid views-kiisa iyo mataqaana subscribers in business kale ay anfacayso marketing ay u tahay markuu muuqaal qurux badan maanta la soo kordhiyo in mataq more views la helayo sida muuqaalka aan marka hore inta sheegay sidoo kale waxa baranaysaa waxa loo yaqaan how to deal how to negotiate waxaas dhan waad baranaysaa qofka la heshiis aniga hadda tib idin si intaas ila shaqeysa waddanka joogan qofkii waxaan siiyaa $25 baa ku siiya halkii muuqaalada waa aragtay soo ku koobayeen 15 daqiiqo u badan ilaa 10 daqiiqo way marka $25 baa ku siiya muuqaalkaas markii ii soo diraan muuqaalka ii soo edit gareeyaan anigana waxa way lacagtooda waan siiyaa markaas ma u shuba isku madaahanaba hadii waxa way qaabkaas isku la shaqeeya sidoo kale muuqaala waxa jira ii soo sameeyaan oo shortska waa qaali shortska ugu uuna yar yahay uuna ka qaalisan asaga sababta ma taqaana subtitle mu shortska la yahay marketing badan weeyo TikTok iyo Instagram iyo Facebook iyo wax la yaqaan qofka oo business meel fuula marka shorts kan gaar ba ugu sameynaysa waa la heshiinaysa dhankan waxa kale heshiinaysa ma taqaana YouTube ka 25 ma basic iska 20 dad waxa jira bixiyo laakiin aniga ma taqaana 25 ma tiimka siiya qofkiiba saas ma taqaana ba ku joogna markastana waxa week kasta laba muuqaal baan u diraa nin kasta halkaas iyo soo edit galayaan shorts kan asaga ka badan wana ka qaalisan yahay wana ma taqaana ka shaqo badan ayagana de shaqada way ku badanaysaa subtitle baa loo jiray ama dad subtitle waa iska dhaaf ka qofka waleeshin ka dhaqaala yarna markaas shortska waa ka qaadan kara marka basic business skills sales staff intaas ugu muhiimsan waa in inta bartay negotiation-ka isku day dhalinyarada in ma taqaana ay kugu shaqeystaan oo kale dad waxa jira ku dhahayo kale bil igula shaqeey ma taqaana si bilaash ah oo dhabarka laga jibinayo adiga marka waxaas ma fiicna dadka shaqada raadsanayaan waxaan in ogaadaan baa inaan la qiyaamin kuwa shaqada bixinaya ayaga waxa dhalinyarada in ixtiraamaan oo waxa weeye waxa laga yaabaa hal muuqaal oo kale baa loo diraa aniga mustari hal muuqaal baa u diraa oo free ah niyo shaqo miyaa u baahan tahay niyo shaqo u baahan talent baa ay waxaan saaqana muuqaal baa u diraa muuqaalka wax dhawa free soo edit gare ii soo dir haddii aan ka helo marka muuqaalkaas waxa way walaal waa ku shaqaalaysiinaya haddii aan ka heli waayna saasaan ku kala joognaa very simple way marka muuqaalka laakiin wixii ka dambeeyo haddii qofka shaqaalaysiyo labada nin ila shaqay qaabkaas baan ku shaqaalaysiyo hal muuqaal baan nin kasta u diray waan ka helay saas baan shaqada u qaatay project toos baa u siiyay oo contract ko saas ay haystaan mid u dambaysa marka waa mid ugu professional way marka shaqaysay oo qofkii la shaqaysay waa xilliga level up sameyn lahayd waa xilliga aad kor u socon lahayd oo ma taqaana aad guur lahayd hataa bis owner adiga aan noqon maxaa laga rabaa website baa la samaystaa website ka professional ka dhigaya website-yada hadii aqoon company galabasha la soo xiriir website
promotion ku san wuxuu marka website ka caawinaya yar hadda Mareykanka jooga waxa bil ka hor soo waxay waxa baahan video edit marka waan raadiyay video wax website la video edit oo bulshada ama agency jiro waa ka waayay mataqaana wadanka dheena ku shaqeynaysa marka muuqaaladii aad mataqaana soo sameeyso kalba website-kaaga soo gelisa maxaa leedahay aniga wax agency video editor baa leedahay lacagta ka qoraysa pricing-kii muuqaalada si u sameeysid mataqaana portfolio-haaga shaqooyinka dadka aad la shaqeyso kale soo geli website-ka mid labaad aad sameynayso waxa social media sameeyso TikTok iyo Instagram iyo Facebook sameeyso qofka aad u shaqeysay marka hore u sheeg aadana u sheegay muuqaalada meelaha soo gelin waxa la qofka social media bilaabay ina ganacsiga bilaariya raba dad kala raa ina muuqaalada u edit gareeyo marka portfolio ahaan baa muuqaalada ina u isticmaalo ayuu hal daqiiqo ama laba daqiiqo mar inaan soo geliyo qaabka editing background gadaal editing qaabka u sameeynay marka social media ka caawinaya dad badan baa gaaraysa dad badan baa kula soo xiriiraya Mareykanka Yurub meel ba jooga waliba taarget dadka qorbaha jooga saar way ayaga iska busy way dhaqaalna way haystaan way ku dhiibiyaan YouTube-kooda iyo Facebook-kooda way marka portfolio waxa ka caawinaya in aad professional xitaa waxa ku dhax jira meesha fikrad in aad samaysid agency adiga xitaa wax sameyn ka dhac dadka marka kugu bataan oo kale ilaa 4 qof 5 qof aad heshid kaliya ma idid karin ka dhalinyar baad si hoos u shaqaaleysiinaysa credit kana aad qaadanay ilaa company iskala moogtahay ana sameynay leedahay wal ugu soo diriya ninka samid baa u dhiibisa adiga ku soo diriya hadhow ma taqaana waad deliver garanaysa almost in wax qoon baa laga yaabaa marka ganacsiga weyn ana watay marka website iyo arrimaha social media iyo branding hadeed aqoonin ila soo xir aniga course e-commerce baan sameynay hadii aad qaadanaysid web design iyo e-commerce iyo digital marketing ganacsiga ku sheeg si xoog ah u bartay course qaado hadii website-ka aad u baahan tahay adeerina waqti gelin barashadiisana nala soo xiriir website qurux badan video editing niche-ka qaabilsan waa ku sameynaa marka saxaabeel video editing fursadahaas baa ka banaan ilaa wadanka jira shaqaalaantaysan way ka faa'iideysan karaan agoona maan saxaabeel businessidii dawlad goboleedyada wadanka hay'adihii institution kasta ganacsiga dadka ku waaweynaa dadka caadiga shakhsiyaadka waxa entrepreneur-ka NGO-yadii maanta si wax u baahan yahay video editing so video marka kule ma ina camera weyn wadatid computer inta aan ku sheegay laga baahan adiga wax ma duumaysid moogta laakiin waa lagu keenaya waa idin garanaysaa software-ka loo sugu diro waa labo aniga waxaan isticmaalaa software-kan wormhole baa la waa free way waa idin faa'iideynaya software-kan ba aniga ba ku upload garaya linkiga wax unda dhalinyarada ila shaqeyso way la dagaan quality-ga video-ga tabtus ahaan ma dhimanayo way soo edit garanay ayagana halkaas bay soo upload garaya markuu dhamaado like upload dhamaado bay soo dir linkiga 24 hour baa kula dagaa waa free mid labaad baa jira oo la dhaho we transfer dad kaasi mustali yaqaan laakiin asaga lacag way subscription way waa qaali waxa laga yaabaa qofka mataqawso inuu awoodin oo qarash ku tahay ama adiga laftiga inaad laga yaabaa marka asaga ku fiican yahay bil xataa qofka mataqaana waladii kala subscription la qaadan hadii aad ganacsi weynta wali marka agency noqoto nin balaar aan noqoto website-ka aad kaas qaado lacag yar baa bishii shanaad baa inaad iska baxsaray aad u yar ama ka yar baa 10 yar meelaha inaad iska baxsay muuqaal qofka marka u dirtidna inuu bil ka qofka taa muuqaalka uu la dii karo waliba dadka aan aroosyada sameeyay aad وانفعين الضبان وكذا ويعشرد قفك ديرتها قبل بدن بيربتها قفك على إنه مركز لدقن لكن كي أكون شيء 24 اور وأنا كل دقتها مقالة 24 اور كده دي هذا لدق لينك هو إكسبير جروب يعني مركز أنا كاسة استعمالها تيم كلا شقية مركز أود مركز ولا دقن 24 جديد مالين جديد أنا مركز مالين جديد مقال كي جبان كل دقتها لعين لو ده إنه بحضر سوفتوير استعمالها سوفر هذا بلا شوي مش بسنة دي بروان استعمالها وهم هو بالله كيف حديثة سحب الموقع هدي أكيش فيديو لايك صار كومنتي نوصل شيء واحد سؤال قبل هذا ما